السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان خياتكو حنا جنالكين أحمد أرقني كسو دواذا قيب حسوب maanta waxaan kusoo jeedin doonaa qaybtii shanaad ee Ramadaan iyo aqoon kororsi. qaybtii hore waxay ku saabsanayd taariikhda Islaamka, balse qaybtan waxay ku saabsanaan doontaa taariikhda caalamka. haddaba aynu bilaabano. su'aasha koowaad: dagaalkii labaad ee adduunka meeqa qof ayaa ku dhintay? dagaalkii labaad ee adduunka meeqa qof ayaa ku dhintay? jawaabta koowaad: in ka badan 10 milyan. jawaabta labaad: in ka badan 60 milyan. jawaabta saddexaad: in ka badan 20 milyan. jawaabta afraad: in ka badan 40 milyan. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا. jawaabta saxda ah waa in ka badan 60 milyan, taasi oo ahayd boqolkiiba 3 dadkii noolaa xilligaas. su'aasha labaad: waa kuma ninkii uu hil saaray Hitler inuu ka dhaadhacsiiyo dadka Jarmalka ahaa in la dilo wixii aan ahayn Jarmalka? jawaabta koowaad: Joseph Goebbels. jawaabta labaad: Joseph Stalin. jawaabta saddexaad: Hermann Göring. jawaabta afraad: Joseph Mengele. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة. jawaabta saxda ah waa Joseph Goebbels. haddaba haddii aan u gudubno su'aasha saddexaad: goorma ayay soo gabagabowday boqortooyadii muslimka ahayd ee ugu dambeysay taasi oo maamushay dhulkii loo yaqaanay Andalus? jawaabta koowaad: qarnigii 16aad ee miilaadiga. jawaabta labaad: qarnigii 12aad ee miilaadiga. jawaabta saddexaad: qarnigii 15aad ee miilaadiga. jawaabta afraad: qarnigii 17aad ee miilaadiga. رمضان ده حياتي شمعة لمماتي يا ربي دعاتي تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النار. jawaabta saxda ah waa qarnigii 15aad ee miilaadiga. waxay muslimiintu qabsadeen Andalus sanadii 711 miilaadiga, waxaana laga saaray boqorkii ugu dambeeyay sanadii 1492 miilaadiga, taasi oo ka dhigan inay maamulayeen ku dhowaad 8 qarni. su'aasha afraad: kumuu ahaa Mahdi isku sheegii weeraray xarabka sanadii 1979 miilaadiga? jawaabta koowaad: Maxamed ibn Cabdullaahi al-Qaxdaani. jawaabta labaad: Juwaymaan al-Cutaybi. jawaabta saddexaad: Khalid Xaamid. jawaabta afraad: Cabdullaahi ibn Maxamed. من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود رمضان ده حياتي شمعة لمماتي. jawaabta saxda waa Maxamed ibn Cabdullaahi al-Qaxdaani. ninkani waxaa soo abaabulay oo maamulayay Juwaymaan al-Cutaybi. ninka lagu sheegay inuu mahdiga ahaa waxa uu ahaa Maxamed ibn Cabdullaahi al-Qaxdaani. haddii aad rabtid inaad arrintan wax ka ogaatid, waxaa jira muuqaalan ka sameeyey, waxaana ka heli kartaa description-ka ama waxuu kaaga soo bixi doonaa meesha kore oo aad ku dhufan kartid kana daawan kartid. haddaba aynu gudubno su'aasha shanaad: meeqa sano ayaa u dhexaysay dagaalkii koowaad ee adduunka iyo burburidii boqortooyadii Cuthmaaniyiinta? jawaabta koowaad: 2 sano. jawaabta labaad: 10 sano. jawaabta saddexaad: 7 sano. jawaabta afraad: 4 sano. طعم الدنيا اتغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير. jawaabta saxda ah waa jawaabta 4 sano ah. waxa uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka sanadii 1918 miilaadiga, waxaana dhacday boqortooyada Cuthmaaniyiinta sanadii 1922 miilaadiga. intaas ayay nagu ogtahay qaybtani shanaad ee Ramadaan iyo aqoon kororsi. intaan ku kulmi doono mowduucan lamida, waxaa idinkaga tegay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي